Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran Amjad. Kusoo dhawaada casharo taxane ah kaasoo aan ugu talagalnay inaan ku baranno ama aan uga hadalno waxa loo yaqaano cryptocurrency. Haddaba waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saartid, siina share garaysid si casharada soo socdo ee taxane ah aysan kuu dhaafin. Mahadsanid. Haddii aan guda galno cashirkeena, waxaanu ku bilaabi doonaa hordhaca cryptocurrency ama waxa loo yaqaano cryptocurrency in aan ka sameyno hordhac. Haddaba hordhacayna maanta waxaan ku baran doonaa ugu horeyn taariikhda cryptocurrency iyo maraaxisha ay soo martay digital money loo yaqaano cryptocurrency. Waxaan kaloo baran doonaa waa maxay ama what's cryptocurrency, iyo waxaan baranaynaa sidee aan u maalgashan karnaa maadaama aan soo baranay waxay tahay cryptocurrency. Kahor inta aanan guda gelin, ugu horeyn waxaanu ka bilaabeynaa historyga ama taariikhda cryptocurrency iyo aas-aaska iyo waxyaabaha ay soo martay iyo maraaxisha ay soo martay cryptocurrency. Haddaba isbeddelkan weyn ee dhanka digital moneyga ama digital currencyga aan aragno ee ka jira adduunka wuxuu ka dhashay tobanaan sano oo cilmi baaris xisaabeed ah, tijaabooyin, go'aano, fikrado hore. Dhammaantood waxay ku bilowdeen dhaqdhaqaaqii loo yaqaano cyberpunk dabayaaqadii 1980kii. Haddaba sanadka markuu ahaa 1983, saynisyahan dhanka computer science-ka ah ee loo yaqaano David Chaum oo ahaa khabiir ku xeel dheer cryptographer wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee soo jeediyo cryptocurrency. Wuxuuna qoray maqaal ah lambaradu waxay noqon karaan kuwa ka wanaagsan lacagta warqadaha ah ee aan isticmaalno. Tan iyo markaas, kooxo yaryar oo ka mid ah khubarada cryptographerka iyo xisaabyahano iyo khubaro dhanka hacking-ka ah ayaa waxay ka shaqeynayeen sidii ay fikraddaas sirta furaha ee u noqon lahayd mid dhab ah. Waxayna ujeedadoodu ahayd in ay ku ilaaliyaan xorriyadda shakhsiga aaladaha sirta ee aan isticmaalno. Haddaba 2009kii bilowgeedii waxaa soo ifbaxay cryptocurrency-gii ugu horeeyay kaasoo loogu magac daray ama magaceedu uu yahay Bitcoin. Waxaana aasaasay shakhsiyad aan muuqiisa la aqoonin kaasoo la magac baxay Satoshi Nakamoto. Waxaana la aaminsan yahay in qayb uu ka ahaa kooxdii aan horey ku soo sheegnay ee loo yaqiinay cyberpunk. Haddaba haddii aan guda galno waa maxay cryptocurrency ama waxa loo yaqaano cryptocurrency, maxaan ku qeexi karnaa? Waa ciwaankeenii labaad, waxaanu ku guda jirnaa hordhaca. Marka cryptocurrency markaa qeexayno waxaan ku qeexi karnaa waa decentralized digital money waaye. Waa lacag digital ah oo haddana ah decentralized. Waxaan ognahay adduunka ama fiat money marka aan joogno, lacagaha caadiga ah waa centralized. Mar walba waxaa gacanta ku hayo central banki. Dowladaha ayaa waxay gacanta ku hayaan lacagta la daabacayo. Dhammaan waxyaabahaas daruuriyaadka ah ayaa waxaa gacanta ku hayo dowladda ayaa gacanta ku hayso. Marka cryptocurrency waxay ka madax bannaan tahay dowladdaas, bangiyadaas ayay tahay mid ka madax bannaan. Marka waa decentralized, waana digital money, waxayna ku shaqeysaa tiknoolajiyad loo yaqaano blockchain. Haddaba waqtiga aan hadda joogno, cryptocurrency-gu wuxuu marayaa number aad u fara badan ama waxaa la sameeyey coinan aad u fara badan kuwaasoo gaarayo ilaa 11,000 oo coin. Coinankaas waxay iskugu jiraan kuwo top ah oo aad u wanaagsan ama good project ah, project fiican wato, ama 100 coin ee ugu horeyso ka mid ah. Marka haddii aan soo qaadano qayb ka mid ah cryptocurrency-ga kuwaasoo ugu sareeya markaa dhahnane waxaa kaalinta sababtay u galayaan ka mid ah kaalinta waxaa gelin kara market cap-kooda ama lacagta ku jirto ayaa waxay gelin kartaa boosaska si ay u kala horeeyaan. Cryptocurrency-geena ugu horeeyo
ee number 1 ku jiro waa Bitcoin ama BTC kaasoo ah aabaha cryptocurrency ama coinkii ugu horeeyay ee la aas-aaso markii ay bilaabatay cryptocurrency. So waxaa laba ku jiro Ethereum coinka loo yaqaano oo asigana is loo soo gaabiyo. Waxaa ka mid ah Binance coin oo coin ay leedahay exchange loo yaqaano Binance oo loo soo gaabiyo asigana BNB. Waxaa ka mid ah Cardano loo soo gaabiyo ADA. Waxaa ka mid ah Tether oo loo soo gaabiyo USDT kaasoo ah stable coin ama coin aanan ziyaadin lacagtiisa. So waxaa ka mid ah XRP, waxaa ka mid ah Dogecoin, waxaa ka mid ah US coin, waxaa kaloo ka mid ah hadda maalmahan aad u soo kacday coinka loo yaqaano Solana ama Sol. So haddii marka aan tagno website-ka loo yaqaano CoinMarketCap, haddaan tagno CoinMarketCap waa website aan ka helayno macluumada coinanka, kaalmaha ay ku kala jiraan, lacagta ku jirto, projectigiisa dhammaan. So marka waxaad ku qori kartaa Google-kaaga CoinMarketCap ayaad ku qori kartaa. Waxaa ku soo baxayo CoinMarketCap. So marka CoinMarketCap markaan imaano sidaan oo u alaa waxaan u jeednaa kriptooyinka ku jiro CoinMarketCap-ka inay ka badan yihiin ama ay gaarayaan ilaa 11,000 iyo something. Isla kriptooyinkaas ama exchange-yada ama suuqyada lagu kala sarrifto ama lagu ganacsado kriptoodana waxay gaarayaan ilaa 300 iyo something ay gaarayaan. So marka maadaama ay ilaa halahaas gaarayaan, so waxaan u jeednaa in lacagta ku jirto cryptocurrency si guud ay gaarayso ilaa 2 trilyan iyo something ay gaarayso. Maalinkiina ilaa 100 bilyan in laysku dhaafsado ama lacag 100 bilyan ah laysku dhaafsado in cryptocurrency. Haddaba waxaan kaloo aragnaa percentage-ka uu ka yahay Bitcoin, percentage-ka uu ka yahay inuu yahay ilaa 43 something percent inuu ka yahay Bitcoin. So marka Bitcoin waxaan dhihi karnaa waa furaha ama waa coinka ugu badan ee lacag badan ee ku jirto haddana dhaqaajiyo ama haga dhammaan cryptocurrency-ga. Okay, haddaba waxaan hadda u jeednaa wixii aan sheegaynay kaalinta koowaad ama coinka kaalinta koowaad ku jiro inuu yahay BTC sida hadda meeshaas aad ka aragto qiimahana uu marayo videogan marka aan duubeyno oo marayo 47,700. So marka market cap-ka ama lacagta ku jirtana ay gaarayso ilaa 896 bilyan dollars ay gaarayso. So marka waxaad qiyaasi kartaa lacagta ay gaarayso iyo lacagta xoogan ee ku jirta BTC-ga. So marka waa coinka ugu fiican ama ugu wanaagsan ee qof uu maal gashan karo. Marka waxaan fahanay waxa la dhahay cryptocurrency-ga iyo intay coinan jiro. Marka coinan aad u fara badan ayaa jiro, coinan wanaagsan oo projectigooda leh oo good project ah iyo coinan aanan wax project ku dhisnaynin oo la iska sameeyay kuwaasoo loo yaqaan shit coins ama meme coins. So marka hadba marka qofka waxaa aad u wanaagsan inuu CoinMarketCap ku imaado oo ka samaysto waxaa la dhahaa sign up oo ku sameeyo si mar walba oo ula socdo xogta coin walba. Marka coin walba xogtiisa oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa CoinMarketCap-ka ayaad ka heli kartaa. Okay, marka cashirkeena haddaan hadda u laaban hadda waxaan ka soo baxnay inaan wax yar ka ogaano waxay ahayd cryptocurrency iyo maraaxisha ay soo martay iyo in aan ogaanay coinanka cryptocurrency-ga intay yihiin in maalin kastana coin oo kusoo darsamo. Hadda video markaa duubeyno inay 11,000 tahay iyo something biri dambo iyo sanado kalena ilaa 15,000 20,000 ay gaari karto. So marka coinankaas inay leeyihiin top coins, coinanka ugu waaweyn ama coinanka dadka ay ugu maalgashteen ama lacag xoogan ay gashteen. So marka ciwaankeena xiga wuxuu noqonayaa sidee u maalgashan karnaa maadaama aan soo baranay wixii ay tahay cryptocurrency aanan rabno inaan ku sameyno investment aan rabno lacagteena yar inaan investing ku sameyno si ay hadhow beri mustaqbalka 2 sano sanad soo socdo ay lacagteeni lacag inuu dhasho sidee baan u maalgashan karnaa. Okay, sidaan u maalgashan karno ugu horeyn waxaan u baahanahay wax loo yaqaan exchange ama exchange kaasoo aan ku shubanayno lacag
danna aan ka gadanayno coinka hadba aan u baahannahay. Okay, exchange-yada jiro waxaa ugu caansan ama loogu isticmaal badan yahay exchange-ga loo yaqaano Binance. waxaa kaloo asigana exchange aad u weyn ah exchange-ga loo yaqaano Coinbase. Gad.io exchange-yada loo isticmaalo si kiribtada aad u iibsato, si aad ugu sameyso maalgelin, aad biri markay qiimo fiican ee ku dhasho aad iskaga sii iibiso. exchange aad u fara badan ayaa jiro, laakiin exchange-ga ugu weyn aan isleenahay waa exchange-ga ugu caansan waa Binance, kaasoo Soomaalida ay aad u isticmaasho, aqbalayna Soomaaliya qofka inuu verification ku sameeyo. marka ugu horreyn waxaa qofka loogu baahan yahay inuu exchange-ga Binance oo ku sameeyo, oo iska diiwaan geliyo, oo registration uu sameeyo, account uu ka furto. waana process aan dhib badnayn oo process fudud ah. marka stepka koowaad markuu qofka account ka furto, waxaa loo baahan yahay qofka inuu ku soo shubo ama uu keeno lacag USDT ama USDC, inuu keeno lacag cash ah qofkii loo keeno. haddaba processka lagu keeni karo waa in fiat money lagu keenaa, bangi lagu xiriirshaa, ama in kiribto qof ay kuu soo dirtaa. haddaba walaalaha Soomaaliya joogo directly bangigooda ma ugu xiriirin karaan Binance, sababtana waa cunaqabateeno iyo waxyaabo badan oo saaran wadankeena. laakiin asxaabta kale wadamada Yurub, wadamo aad u badan waxay directly ugu xiri karaan bangigooda. marka asxaabta Soomaaliya joogo ama wadamada Soomaaliya lamida waxay u baahan yihiin hadba farsamo inay isticmaalaan, sida inay qof kale ka iibsadaan ama in ay isticmaalaan account qof kale. laakiin waxaa jiro walaalo aad u fara badan ama dad qaar oo lagu kalsoonaan karo oo aad ka iibsan kartid kiribto, inaad ka iibsan kartid. haddaba stepka ah inaad lacag kusoo shubto haddaad marto, then waxaa ku xigo in aad coin kasoo xulato coin market cap-ka, thenna coinkaas inaad iibsato, aad buy gareyso. bacdeenna markii coinkaas uu soo galo walletkaaga inaad time siiso, oo maadaama aad investment sameyneyso, waxaana u baahan yihiin sugitaan fara badan, inaad aad u sugto, waqti siiso, thenna waxaad arkeysaa insha Allah coinkaas asoo qiimo fiican dhalay. marka waa muhiim qofka inuu leeyahay patient ama dulqaad, waayo coin waxaa arkeysaa muddo yar waqti aad u yar ku kacay qiimo aad u fara badan. haddaan tusaale sameyno last 7 day, waxaa arkeysaa coinan qaar qiimo aad u fiican sameeyeen last 7 day. Solana waxay sameysay 47% ay dhaqaaqday. marka qofka dulqaad lahaanin, qiimahaas waxaa laga yaabaa inuu asigoo gaarin uu iska iibiyo. marka bilo ka hor Solana waxay mareysay $20 ayay mareysay, maantana waxay joogtaa $110 ayay joogtaa, ama $111 ayay joogtaa. marka qofka markuu coin soo iibsado oo gato, then inuu siiyo waqti fiican, maadaama ay u baahan tahay time 1 sano, 2 sano, bilo, hadba inuu u qorsheeyo waqti hadduu u baahan yahay inuu sameeyo investment. marka hadda waxaan baranay si guud, maadaama cashirkeen oo hordhac yahay stebiska qofka oo marayo. cashirada xigana waxaan gudageli doonaa wax walba oo u baahan yahay qof rabo inuu maal gashto cryptocurrency. haddaba waxaan kaa codsanaynaa channelka inaad subscribe saarto, siina share gareysid. mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.